السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان هلكن ku qabanayna gabayada silsilada fadhigaab maanta way taariikhdu tahay 19 bishii Afriil 2020 waxa la soo sheegay in magaalada fadhigaab ay ka qarxeen dagaal la sukeeye isla maanta way taariikhdu tahay 19 bishii Afriil 2020 waxay fariintani soo gaadhay golaha boonada afkii dhaqanka shanta Soomaaliya kadibna waxa ka curtay gabayadan waxa bilaabay Cabdilaahi Cali Ibrahim silsilada fadhigaab wuxuu yiri بسم الله الرحمن الرحيم فدقاب دقالada ka dhacay fooreen nagu Kenya fariimaha na soo gaarayaan faarax noo sidine fiinta dhawaaqaysa iyo galowga fooriyaya fidmadii colaadaha qarxiyo faalalkiisa suuga fardaha awaaraha dhigiyo fadalka duulaanka falaaraha isdhaafiyo warmaha fiidka ololaya filan waaga iyo geeridani waa fajaco weyne fikirkayga kuma hayn inay dib u falaadaane ficil weeye shaydaanku uu soo falkinaya rabadaanna waa foolatiyo bilihii fiicnaaye ada maanta naga feedi kara fool xumiya ceebe nafurdaami eebow ada faa'id noo sidee ayuu yirgeli halka markuu soo dhigay waxa soo galay amarka Ilaahay nin la yiraahdo aw faarax gure wuxuu yiri falka uu ku soo weerinayo ficilka la sheegay family dagaalamay bulshada lagu falaadayo filan weynay maantaba warkay filagu sheegeen foolaada iyo waa inay dhaqan ku feytaane culimadu fadhiga uga kacaan kana fadwoodaane falfaloostu waa inay tagaan meesha furinta ah xabaalaha la faagiyo qabrigu farax ma keenaane fidma lagu ma guuleysto iyo faasuq dhaqankiisi furka maanta aad qaadataa waa fin kugu yaal faa'iido nabadaale iyo furo barwaaqaade feerac tolka lagu ridaan farad ku gaarsiini fikradaha qaldani oonka way kala fidmeeyaan fadhigaab markaan daawadaba waan fajacayay alla ilaahay waxaad feenateen faadumiye luuli waxaad faraha saarteen intii ugu facweynayd fariid iyo waxaad toogateen faarax iyo nuure fahma oo ka taga ceebta waa laga fogaaday ayuu yiri aw faarax gure amarka ilaahay silsiladii fadhigaab markay halka baturinayso waxa isu soo daruuray oo soo galay la yiraahdo Carab Maxamuud Jaamac wuxuu yiri Carab Maxamuud Jaamac faral baa la faray aadanaha ficilka diineedii fasahaadka waa looga digay faashil iyo ceebe faa'iido ma leh ruux walaal faraha saara foodana dhamaanteedba waa laga fogaaday fidma ruuxa faaqida wanaag sooma faa'iidooy imisa rag farihii ku lumay faalka iyo ake imisa fardows gabar ahayd muruga food saartay fiidmeer ciyaysiyo dhulka firadu duulayso faraha ka badan shacabka ay fooda geliyeen waa inaynu fahnaa wacyiga ficiladiisii family isdilay iyo xumaan abid ma fiicnayne inta aan iskuba fooganahay faraxiyay gaalkii fursadaha inaga lumaya aan fiiro u lahaano waa faashka dhiigale wixii haatan fidayay funuus baxaya mugdiga laga furaashtay fikirkeenu iyo noqon sidii ficilkii shaydaan ayuu yiri Carab Maxamuud Jaamac halka markuu soo dhigay Carab amarka Ilaahay waxa soo galay nin la yiraahdo Dulmidiid wuxuu yiri Dulmidiid aw faarax geelo warbu soo fatahayay fidmo iyo dagaal dhacu faarax leeyahay fadhigaab warka nooga yimi ficil xun weeyaan fasahaad iblis soo dhigiyo fikir xun weeyaane faahfaahin kama doonayo finish ba weeyaane faraj wacan allah ayaa u keen waa fidmiye hooge dagaal fidaya faa'iido male filiqtinkiisi sukeeyaha baa kala fogaan labada fiidcawle faadumiye waxaan wada hadlayn faarax iyo luul fiid baan lahaa saawahayn fooda dabadeede fidmada allow naga qabo faraj nasiih khayr leh ayuu yiri Cabdiraxmaan Cali Yuusuf Xaaji Saleebaan Dulmidiid halka markuu soo dhigay markii Ilaahay waxa soo galay nin la yiraahdo Umar Xaaji Cabdilaahi danka hadal wuxuu yiri danka hadal fadhigaab dagaalada ka dhacay waa fidmiye hooge faa'iido ma leh ruux haday ficil xumaadaane fasahaadka aadmigu galiya faanku waa belo fakisiyada ka yimi waa waran farax abuurayne furayaal iblis bay wataan oo fadeexa ah fahankii dadnimada ka maqan faala nololeed fiyobaan haday leeyihiin xumama faageene fashil weeye Soomaalidii faraha weyneydii farsamadu haday foorartiyo filimku waa seem Faransiiska Finland ayay wada fariistaane Faransiga cadaanka ah wuxuu filayo waa guule fiidiyo habeen bay midnimo falag ku goobaan feer qura ayaad wada tihiin oo la faaqidine fariid kula dhashiyo yaan la dilin Faysal khayr qabaa ka fogaada furimaa la galo waa futuud qarane ayuu yiri danka hadal amarka Ilaahay halka markay garaantu baturinayso waxa soo gashay Leela Saalax Warsame waxay tiri Leela Saalax Warsame fadhigaab waxa laga ogyahay tan iyo fiidlaami
fiidkii horuu noogu yimi fooqyada sare fiid meerta duushiya warka fooraha siday farax naguma beerina halqiga waad fajiciseen foolxumada duulaanka iyo fiinta ladii weyday fooxaaba noo sheegayay iyo faalka caytamay 30 sano fidma socotay iyo foodo waaliyahe fasahaadka lagu hoobtayaan cidi ka fiigaynin idinka ragow fulinayay dumar ma faytaan fusuq iyo colaadaha ayaad faan ka dhigataane farta iyo daroogaduna waa kugu filnaataaye family ma eegtidii dambaad uga fogaateen nin walaalkii farasaaraya dhay ma fuuqsado fariidnimana ma aha aqliga farooro weeyaane faa'iido lama gaarayo waad fashilanteen haweenkiina waa kugu fahmeen ku fallaan jiray fudayd bay ahayd caashaqii faraxu saarnaaye waa inaan dib uga fiirsanaa faallo iyo guur fiyoori dhamaa iyo kalgacal filimadiisii fariin la isu dirayaa wadnaha lagu falaasayne furashada kuwa kula hurdaan ka fasaxayaa foojignaada geelow ilaa waa fas iyo ku hoye ayay tiri Leela Saalax Warsame grantii fadhigaab halkaas ayay inoo joogaysaa qaybteeda hore sidoo kale waxaan idinka raali gelinaynaa gabayadu wixii qadaf iyo qalooc aad ku aragtaan madaba ay ahaayeen gabayo gol ka fuul ah oo ay hal abuuradu ku cabireen dhacdo taagan isla markaa iyo goobta iyo xilliga waa Cabdilaahi Cali Ibraahin geelle oo idin la socodsiinayay iyo golihii abwanada afka iyo dhaqanka shanta Soomaaliya